walada waa mid ka mid ah boqortooyada xayawaanka bahda lafdhabarleyda gaar ahaana bahweynta naasleyda qoyska weyn ee noolayaasha leh fuqa dheer ama gacanka dheer kuwaasi oo ay ku jiraan maroodiga qarandida iyo xayawaanka loo yaqaano antita kaasoo laga helo bartamaha iyo koonfurta Ameerika. Bahda cilmiga saynisku waxay ugu yeedhaan Marcos Zelididae. Guud ahaan adduunka waxaa laga helaa ilaa 19 nooc kuwaasi oo ay ku jirto nooc loo yaqaano Somali Zengi ama Rivolis elephant shirow. asal ahaan waxay ka soo jeedaan qaaradda Afrika iyadoo laga helo deegaanada qaleel xigeenka kuwaasi oo leh cawska. Noolahan waxay quudataa cayayaanada yaryar sida caarada, hangaraaraca iyo dirxidhuleedka. badanaa waladu waa habeen noole. waladu waxay leedahay 4 lugood oo xoog badan kuwaasoo ka caawiya inay kaga baxsato noolayaasha kale ugaarsada indho iyo dhega waaweyn. sidoo kale waxa ay ku wada xidhiidhaan ur ay ka sii daayaan qanjidh kaga yaala dibka hoostiisa taasoo mararka qaarkood ay iskaga difaacaan xayawaanada kale ee ugaarsada. waxay u boodboodaa sida bakaylaha oo kale. cimriga walada duurjoogta ahi waa 1 ilaa 2 sano. culayskeedu waa 28 ilaa 43 gram iyadoo ku xidhan kolba nooca ay tahay halka uu dhererkeedu gaadho 20 ilaa 30 sentimitir. sidka waladu waa 67 maalmood iyadoo halkii mar dhasha 1 ilaa 2 ilmood. sanadkii 2005 ayaa saynisyahanno Tanzania u dhashay shaaciyeen in lagu arkay Tanzania waladii adduunka ugu weyneyd. bishii 8 sanadkii 2022 Djibouti waxaa lagu arkay nooc ka mid ah jaadadka walada oo loogu yeedho Zenji sida ay sheegeen saynisyahanno dalkaas ku sugan.